السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتاش قيمة بدن وسلامتين ملكستو الدنيا دافيد كجوكتان كسو دواد برنامج كينا وحكا اوغو جلاغا اودو كل يها باكوس اوفيسكا دعواتاش قيمة بدن برنامج كان وحن كنت حلالين دونان جلاياشا افلامت ايجلن فيلم والبا درجة وكجاري انكاس باكوس اوفيسكا انت بدن دعواتاش قيمة بدن برنامج كينا وحن كسو قادن دونا جلاياش اود بدن dhankaasi koonfur hindiya sidoo kale ka marna jalaayasha uga awood badan dhankaasi bollywoodka inta badan barnaamijkeena waxaan awood saari doonaa dhankaasi koonfur hindiya maxaa yeelay asxaabta janaalka ku xiran inta badan waxay xiiseeyaan dhankaasi koonfur hindiya sida daraadeed daawadash qiimaha badan barnaamijka hadda kadib janaalkeena wuxuu ka bixi doonaa toddobaadkii ku dhawaad ilaa 4 mar ay janaalka ka bixi doonaa intaan gudagelin barnaamijkeena daawadash qiimaha badan marka hore ku soo dhawaada janaalkeen fadlan hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb daawadash qiimaha badan barnaamijkeena maanta waxaan kula fogaari doonaa superstar lagu magacaabo Barbaas iyo awood uu ku leeyahay box office-ka inta badan asxaabta comment wana akhriid inta badan waxay soo codsay in Barbaas aan soo gudbiyo sida daraadeed maanta barnaamijkeena waxaan kula fogaari doonaa superstar kan Barbaas daawadash qiimaha badan Barbaas wuxuu dhashtay 23 Oktoobar 1929 sida daraadeed bilaha soo socda wuxuu jirsan doonaa 42 sano daawadash qiimaha badan ninkan wuxuu ka tirsan yahay fanka loo yaqaan Tollywood sidoo kale xarantooda ay tahay magaalada madaxda Hyderabad daawadash qiimaha badan jilaaga fanka ama fanjilist wuxuu soo galay sanadkii 2002 sidoo kale wuxuu ka soo muuqday film action iyo drama isku jiro ana film noo magacaabo ishwar ayuu ka soo muuqday laakiin daawadash qiimaha badan ninkan ban indi wuxuu noqday oo min tulila magaal ilaa dunida daafeed laga bartay markuu sameeyay filmkiisa Bahubali labadiisa qoobood sidoo kale wuxuu noqday atooraha ugu mushaarka badan aflaamta ku sameeyay wada xaadirkan xitaa waxay ka soo talaabtay awoodiisa koonfur hindi ilaa gudahoodka meel walba awood xoogan ayuu ku leeyahay daawadash qiimaha badan jalaagan waayaha uu fanka ku jiro waxay ku dhowdahay 18 sano sidoo kale aflaamta uu sameeyay aad u kooweyn daawadash qiimaha badan jalaagan wuxuu sameeyay 19 film asiga hogaamiye ka yahay kuma jira inta badan aflaamta muuqaal marti ku leeyahay aflaamtan asiga ayaa hogaamiye ka wuxuu sameeyay ninkan 19 film ayuu sameeyay all time blockbuster wuxuu sameeyay hal film blockbuster wuxuu sameeyay 2 film super hit ilaa hit wuxuu sameeyay 5 film semi hit average wuxuu sameeyay 3 film below average flop disaster wuxuu sameeyay 8 film ninkan cilisahan aflaamtiisa daawadash qiimaha badan 75% guuleysteen daawadash qiimaha badan jalaagan aflaamta uu sameeyay film walba darajada uu gaaray ayaan kala qaadi doon filmkiisa koowaad waxa lagu magacaabo daawadash qiimaha badan waana filmku ku soo gaday fanka waa film lagu magacaabo ishwar oo la daawaday 2002 filmkan wuxuu noqday average filmkiisa la ragahabandar oo la daawaday 2003 asna wuxuu noqday flop filmkiisa saddexaad waa farsham oo la daawaday 2004 filmkan wuxuu noqday super hit filmkiisa afraad waa David Ramadu oo la daawaday 2004 filmkan wuxuu ka noqday disaster filmkiisa shanaad waa Jagram oo la daawaday 2005 filmkan wuxuu ka noqday flop filmkiisa lixaad waa Jadrabati oo la daawaday 2005 asna wuxuu noqday super hit filmkiisa toddobaad waa Bornami oo la daawaday 2006 filmka asna wuxuu ka noqday flop filmkiisa sideedaad waa Yogi oo la daawaday 2007 filmka asna wuxuu noqday samid filmkiisa sagaalaad waa Munna oo la daawaday 2007 asna wuxuu noqday flop filmkiisa tanaad waa Jagadu oo la daawaday 2008 wuxuu noqday below average filmkiisa 11 waa Billah oo la daawaday 2009 asna wuxuu noqday samid filmkiisa 12 waa Ignoranjan oo la daawaday 2009 asna wuxuu noqday below average filmkiisa 13 waa Darling oo la daawaday 2010 asna wuxuu noqday super hit filmkiisa 14 waa Emer Perfect oo la daawaday 2011 asna wuxuu noqday super hit filmkiisa 15 waa Rebel oo la daawaday 2012 asna wuxuu ka noqday flop filmkiisa 16 waa Mirji oo la daawaday 2013 asna wuxuu noqday blockbuster daawadash qiimaha badan ninkan wuxuu awood balaaran ku helay filmkiisa Bahubali markuu sameeyay muddo 5 sano wuxuu galay Bahubali labadiisa qaybood daawadash qiimaha badan filmkiisa 10 waa Bahubali the beginning oo la daawaday 2015 wuxuu noqday blockbuster filmkiisa 8 waa isla Bahubali the conclusion qaybta labaad oo la daawaday 2017 asna wuxuu noqday all time blockbuster darajadii ugu sareysay film uu gaar karo ayuu gaaray filmkiisa 19 ugu dambeeyay waa filmkiisa Saaho oo la daawaday 2019 asna daawadash qiimaha badan filmkan wuxuu noqday average daawadash qiimaha badan guud ahaan Barbaas wuxuu sameeyay 19 film hogaamiye ka
yahay all time blockbuster wuxuu haystaa hal film, blockbuster wuxuu haystaa 2 film, super hit ilaa hit wuxuu haystaa 5 film, semi hit average wuxuu haystaa 3 film, below average iyo flop disaster wuxuu haystaa 8 film. Celilisaan daawadayaasha qiimaha badan jalaagan aflaamtiisa 75% way guuleysteen, taasoo ka dhigan qof guush u saaxiib ah. daawadayaasha qiimaha badan dhanka shaqada markaan fiirno Barbaas farqihiisu ay buuxaan, maxaa yeelay wuxuu hadda doois ku wada 2 film oo ban India waan 2 film laga daawan doono min tuul ilaa magaalo, sidoo kale daafaha caalamka laga daawan doono. Wuxuu doois ku wada filmkiisa Salaar oo miisaanad gaaraysa 400 karoor xambaarsan, sidoo kale wuxuu hadda doois ku wada filmkiisa The Brush asna wuxuu xambaarsan yahay miisaanad kor u dhaafaysa 500 karoor. daawadayaasha qiimaha badan ninkan waa superstar-ka ugu awoodda badan fanka dhankaas iyo koonfur Hindiya, sidoo kale awoodiisa waxay kasoo talaabtay gudaha Hindiya daafaha caalamka ay gaartay. sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan labadan film wuxuu la imaan doonaa, sidoo kale waxay badan tahay filmkiisa The Brush waxaa la daawan doonaa sanadka dambe 2022, inkastoo filmkiisa Salaar wali aan shaac laga qaadin waqtiga rasmi la daawan doono. laakiin kuwa qoryaha aflaamta ka faalooda iyo qoryaha shabakadaha ka soo baxa dalka Hindiya waxay leeyihiin 23 ayaa laga yaabaa in la daawado filmkaas. daawadayaasha qiimaha badan waxaa halkaas inoo dhan xogtii aan kasoo diyaarinay Barbaas awoodda ku leeyahay box office-ka, sidoo kale actor-ka ama actress-da jeclaan lahayd in aad ka ogaato xogtooda ay awoodda ku leeyihiin box office-ka comment inoogu reeb. ninkii loo bata ama actress-da loo bata ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijyadeena xiga. waxaa halkaas inoo dhan daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeeni. fadlan hadday tahay markii kugu horreysay channelkeena soo boqonayso fadlan subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalkan like saar. laagta waxay nagu dhiirgelinaysaa muuqaalka inuu faafo oo dad badan gaaro, sidoo kale aragtidaada comment inoogu reeb, sidoo kale muuqaalkan share dhe si saaxiibo wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo xirmaan. sidoo kale waa inoo muhiim aragtidaada inaad comment inoogu reebto. fadlan ha ka ilaawin inaad muuqaalkan like saarto. intaan barnaamij la mid aan ku kulmayno daawadayaasha qiimaha badan, amaano Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.